maanta waxaan idin haynaa faa'iidooyinka caafimaad ee diirka liintu ay leedahay iyo sida loo isticmaalo. Haddii aynu ku horeyno faa'iidooyinka ay leedahay, inta badan horta dadku ma oga faa'iidooyinka waaweyn ee caafimaad iyo midda quruxeed ee ay liintu leedahay. Qolofka liinta ee ay dadku tuuraan waxaa laga helaa faytamiin aad u badan. Haddaba waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa 7 faa'iido oo laga helo diirka liinta. Ka koowaad waxa weeye ka hortagga kansarka. Diirka liinta waxaa lagaga hortagaa kansarka. Waxaa ku jira 2 maado oo lagaga hortago kansarka, kuwaasoo unugyada kansarka kala dagaalama jidhka. Qodobka labaad, kolestaroolka oo ay hoos u dhigto. Diirka liintu waxaa loo adeegsadaa in hoos loogu dhigo kolestaroolka dhibaatada u leh jidhka, waana arrin u fiican halbowlayaasha jidhka iyo caafimaadka wadnaha. Qodobka saddexaad, caafimaadka lafaha. Diirka liintu waxaa laga helaa faytamiin C fara badan iyo calcium, kuwaasoo u roon caafimaadka lafaha, kuwaasoo adkeeya oo dhisa lafaha. Qodobka afraad, ka hortagga cudurrada wadnaha ku dhaca. Diirka liinta waxaa laga helaa potassium, taasoo ilaalisa dhiigga, waana muhiim caafimaadka wadnaha iyo xididdada dhiigga qaada. Qodobka shanaad, caafimaadka ilkaha. Diirka liinta waxaa laga helaa faytamiin C aad u badan. Faytamiin C marka uu ka dhamaado jidhka ama uu ku yaraado, waxaa lagu yaqaanaa inuu keeno mushkilado badan oo ay ka mid tahay ilkaha oo dhiiga iyo caabuq lagu arko ciridka. Haddaba diirka liintu wuxuu ka hortagaa dhiigitaanka ka yimaada ilkaha iyo caabuqa kale labadaba. Qodobka lixaad, qurxinta jidhka. Diirka liintu waa hab ka mid ah hababka lagu qurxiyo jidhka. Diirka liintu waxa uu ka biiyaa wejiga iyo jidhkaba finanka ku yaala, waxaana loo isticmaali karaa iyada oo wejiga la saarayo, wuxuuna kaa biin doonaa madowgii iyo finankii ku yaalay wejiga, isagoo jidhka iyo wejigaba siin doona iftiin aad u badan. Ugu dambeeya waa dhimista miisaanka jidhka. Diirka liinta waxaa laga helaa maadooyin lagu yareeyo miisaanka jidhka, waana hab kale oo lagu dhimo miisaanka jidhka. Ugu dambeyntii, diirka liinta waxaa loo isticmaalaa habab badan, waxaana ka mid ah inaad soo qaaddo biyo oo aad ku shubto caagad, kadibna aad ku dhex ridto, markay ku milmaan aad cabtid, inaad budo ka dhigtid oo aad marsatid, inaad karsatid oo aad cuntid, iyo inaad wejiga saartid.